madaxweynaha sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka laga tago sooyaalkiisa arrimaha siyaasadda wuxuu ahaan jiray taageere ciyaartoy iyo garsoore kubadda cagta mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 8 February 2017 loo doortay jagada xilka madaxweynenimo ee Villa Soomaaliya ayaa xilka kala wareegay madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Farmaajo inta uu ra'iisul wasaare ka noqon dalka wuxuu shahaadada xirfadda garsoorka ee kubadda cagta ka qaatay jaamacad ku taala Washington DC isagoo ka soo muuqan jiray tartamada kala duwan ee kubadda cagta oo ay qaban qaabin jireen jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka. Prime Minister kan noqon waxaan ahaa aniga FIFA waxaan ahaa referee garsoore ayaan ahaa xitaa ciyaartooydii hore aan ku sheegay ee Soomaaliya Mareykanka dhexdiisa sanad walba meel isugu tagaan oo ay ku ciyaaraan waxay cazumeen 2012 kii waxay iga cazumeen Ohio oo ay yimaadeen maxaan ku rahay macallin Suudaani qarindi ragaas waxay tababaryaal hore ahaayeen qarindi wuxuu ahaa wuxuu tababari jiray Kismaayo ciyaartooyda ka imaata Abu Kufundi sana wuxuu ahaa ragii marka way iga cazumeen si aan ugu noqdo garsoore madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markiisa hore wuxuu ahaa nin sporti ah markuu xamar deganaa oo xaafadihiisa dadka waxa ahaan jiray ataan maqlay oo lagu tashan jiray markuu dibadda aadana wuxuu noqday referee oo noqday jaamacadaha oo ka qabto oo heerka koowaad ah jaamacadaha kadibna wuxuu ahaa jaaliyadaha Soomaalida oo meelaha kubadda ku ciyaaraan oo si voluntary ku sameyn jiray hadda ugu dambeysay ama meesha ugu dambeysay arbitrar qabtay inay ahayd Ohio وأنا سبورت آد وجعل ذاتك سبورتي أنا كنت أحكيله ومر والبو صاحبته ugu badan oo leeyahay dadka waa dadka sportiga ah waxaan ku ciyaari jiray xarunta General Kaahiya ee School Buluusiya ilaa markii aan ka qaran jibinayay iskuulka sare waxaan dheeli jiray kubadda cagta anigoo daawan jiray xirfadda kooxdii barsimaadka ee Fiat iyo macallin Giftin waxyaabaha i jecleysay sportiga waxaa qayb ka ahaa tababar Cabdicasiis Giftin sida ay kooxdiisa Fiat baasaska gaaban u ciyaari jireen iyo isku xirkoodii wanaagsanaa meelaha ku ciyaari jiray waxa kamid ah School Buluusiya School Buluusiya markaasi waxa imaan jiray ciyaartooyda Fiat oo ahaa markaas ciyaartooyda aan ugu jeclaa waxa aalantoor u ahaan jiray nimada Giftin macallin Giftin waxyaabaha i jecleysiyay ciyaaraha waxay ahayd sida ay u ciyaarayaan sida paaska soo dhiibayaan iyo sidoo macallin fiican u ahaa oo ugu dhex jiray aalantoor u ahaa oo ugu dhex jiray marka yar tahayna waxyaabahaas kale ma waxay leeyihiin ma intii aan yaraa ciyaartooydii aan ugu jeclaa ee dalka ka dhiri jirtay waxaa kamid ahaa Ben Shaakir Cafiif Maxamed Ismaaciil Ducaale Mukhtaar Cuti iyo xidiga kale oo aad u tiro badan kuwaas oo dalka ku lahaa sumcad iyo sharaf ciyaartooyda aan aad u jeclaa waa badnaayeen aad iyo aad u badnaayeen xilliyadana waa kala duwanaayeen xilliyadii hore waxay ahaayeen Grille min la oran jiray Ismaaciil Ducaale waa 7 early kadibna waxa ku xigay Ben Shaakir Cafiif maxaan ku raahdaa Maxamed Ismaaciil oo isna horseed u ciyaari jiray kadibna Mukhtaar Cuti iyo badbacada marka waa soo bateen laakiin markaas hore oo runtii aad iyo aad aan u tagi jiray maaragtay isbitaabadan aad u tagi jiray markaas Ismaaciil Cafiifi Scott rag badan mar walbana wuxuu jecel yahay sportiga inuu u isticmaalo maxay ahayd xagalka bulshada hatta markii uu dibadaha jooga hatta ciyaaraha uu ka qayb gali jiray Ohio lagu qabtay iyo Toronto lagu qabto anaga hatta mar hore ka casuunay inuu nagala soo qayb ciyaarahaas Ingiriiska ma ku imaado hatta dadka bahal sportiga ku kulmi jiray ma ku imaado qaadina nin sporti uu yahay oo si fiican u yaqaano madaxweyne Farmaajo ayaa bishii May 2017 sanadkii la soo dhaafay wareysi uu siiyay wargeyska Sharqal Awsad ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ka hadlay 10kii maalin uu joogay xafiiska madaxtooyada Villa Soomaaliya su'aalaha la weydiiyay waxa qayb ka ahayd waqtigaaga sidee ugu qaybisaa qoyskaaga iyo shaqada madaxweynenimo mise leedahay waxyaabo aad ka hesho aad sameysay madaxweyne Farmaajo ayaa sidaan ugu jawaabay waqtiga ugu badan shaqada xafiiska ayaan ku qaataa xilligan caruurteeda waxay ku nool yihiin Mareykanka oo ay joogaan marka runta ku sheego shaqada madaxtinimo ee Soomaaliya kuma ogolaanayso wax kale inaad sameyso haddii noqon lahayd
nolosha qoyskaaga iyo mid kaleba. wax akhriska waan jeclaa ciyaaraha inta aan madaxweynaha noqonin waxaan taageeri jiray kooxda Real Madrid ee ka dhisan wadanka Spain laakiin hadda waxaas oo dhan ma jiraan. madaxweyne Farmaajo ayaa aqalka madaxtooyada ku qaabilay ciyaartooyda xulka 17 jirada qaranka Soomaaliya ee kaalinta labaad ka galay tartankii bariga iyo bartamaha Afrika ee 2010 ka dhacay Burundi. Farmaajo ayaa u mahad celiyay ciyaartooyda Soomaaliya heerka wacan gaarsiiyay burburkii kadib wuxuuna daayirta tusaale ugu soo qaatay waqtiyadii hore sida loo jeclaan jiray in lagu faano Soomaalinimada. naftigeena waana soo nooleyseen dib baa waxaa noo soo xasuuseen waqtiyadii hore iyo sidaan u noolaan jirnay iyo sidee aan ugu faani jirnay Soomaalinimada haddana idinkaan noo bilaabay hadda marka ogaada meesha aad Soomaaliya kaga jirtaan waa baal dahab ah